بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا برنامج gaara oo aan kaga hadli doono wararkii ugu dambeeyay dagaalada maanta ka socda galbeedka gobolka City halkaasi oo weerar ay soo qaadeen kooxda deegaankaasi canfarta ka socota ama maamulkaasi canfartu weerarkii ay ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool galbeedka gobolka City iyo jawaabtii ay ka bixisay Soomaalidu isla markaasina la sheegay in ay cashiro lama ilaawana u dhigeen ciidamada ka soo duulay dhinaca canfarta ee soo weeraray dadka Soomaaliyeed ee iyagu ku nool deegaanada galbeedka gobolka City haddaba si aan wax badan uga ogaano xaalku meesha uu marayo iyo xogihii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi waxa khadka telefoonka si toos ah ugu jira Ilyas Wacays oo kamid ah dadka deegaankaasi isagu ka soo jeeda waxaana jecel lahay inaan ka wareysano bal xogihii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi ka socda galbeedka gobolka City Wacays aan ku soo dhaweeyay Ilyas marka hore bal hadda waxaad nooga warantaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi maxaa xog aad ka haysaa goobaha lagu dirirayo meesha ay yihiin iyo ilaa iyo hadda inta aad xog idin soo gaadhaysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كوغاد بان يجمع معدلين يا سيدا عدو ديرنتين إن شعب كولالاها صومالي ميل والبا يكسو جيهين ساد ويفتي ميسان دقالة إيو مشاكل كماشة تاقن حلقة ومرة إيو إيسابها دادكينا لو بهدل إيو إينات مروال بحوكتا عدسيسان مركز كوغاد واتاس طلبات وحان حقا عن وقتع سيدين يارونتي المجاهدين تاسي walaalaha xagagaasi ku geeriyooday iyagoo u heelinayaan waajibaadkii ka saarnaa iyagoo ka soo baxay waxa weyn taasi waa walaalihii Soomaaliyeed oo waxaan ku iraadaanay Soomaali galbeed oo marka hore maxaan ku iraadaan dagaalka loo arkay dagaal gobolka City u yaala laakiin ay hadda ahaan la ogaaday in Soomaali la kala qaybsaday oo aynan ahayn arintani dad gobolka City ayna u taalo haddaan arintan iyada aanu soo laabo maxaan ku yiraahdaan xagga ay marayso horta siday wax u dhaceen saaka subaxii ayaa lagu waabariistay sidii ay caadada u ahayd amba uga barteen cadeytina ay u gubeen markii dambe magaalada ay u barakiciyeen sidii si leeg bay maanta ay doonayeen dadkii hurdo waagu barigiisiiba ay qabteen rag aqal gubaya marka waxay ugu talagelayeen in markii la gubo ay dadku isdhex yaacaan in xasuuq aan sidii garbaciisa looga geysto laakiin ragii oo dab qabadsiinaya lagu qabtay dagaalku xaggaas uu ka bilaabay magaalada Cusub amba Cundhufo sida loo yaqaano halkaas ay noqotay in hadii la iskala barakaco oo bahashi dhuun yar iyo deyn ba u kala baxdaa garbaciisa markii la deyn ba u baxdaa xaggan kale dhuun yar ba u baxdaa waxa weyn waa cadeyti iyo maxaan ku iraadaanay Cusub waxay noqotay dagaalkii xagga ka bilaabay in la barako ragii la matqaanay la kaco ilaa iyo maxaan ku iraadaanay xaqii maxaan ku dagaalku markii ali markuu saas ku qabsaday waxay noqotay meel walba inay ka bilaabato way dadku ciidamada dad soo hor fadhiyay hayeen la sugayay in bal aqligooga amba xagga federaalka lagala soo hadlo waa dhulka Soomaaliyeed ka baxayo waa waan bal ugu gudi jiray laakiin gacan saar in ka soo leeyahay isku ogeyn bal haddana aqligooga ha soo laama lahaa haddana waxay isku dayeen in ay gubaan ay dagaal kala bilaabaan laakiin nasiib wanaag in la iska caabiyay noqotay xagagii ay joogeen hadda laga barakiciyay xagga tareena waa laga barakiciyay waa laga kiciyay saldhigood waa laga qabsaday halkii kale ee maxaan ku iraadaanay dan la helay iyagna saas leeg xaqii kale ee garbaciisa dhinaca kale ee maalinka dhow taxasuuqa baan laga geystay iyagana way ka bilaabatay dhowr saacadood kadib iyagna hadda go'doon bay ku jiraan ciidamadii waxa soo galay maxaan ku iraadaanay federaalkii baa yimiday oo doona inay hadda kala dhex galaan muddo dhan way joogeen bil baa ka soo wareegtay afreelaatinkii bishii hore dagaalka xasuuqii baa ay dhacay waa waana matqana loo taag waayay hadda doona inay waa waan soo kala dhex galaan xagaas waa garbaciisa oo waxa weey waa duun yar ha soo laamano xagaas ilaa hadda dagaalku ka socdaa farti waa la siiriyay hadda cadeyti baa loo dhow yahay waxa weeyeen cadeyti iyo maxaan ku dhacno waxay isku yaan 70 kilomitir marka iyagu marka dhaweyto waxay xuduudda soo dhaafeen 5 kilomitir meesha bartamaha marka waxa u jireen 30 kilomitir buu jiray Cundhufo marka hore la soo fadhiyay waxay noqotay imika ahaan in hadda 10 kilomitir loo jiro oo magaaladii cadeyti ee waaga hore laga soo barakiciyay walaalaha Soomaaliyeed in hadda loo dhow yahay xagaasi taagantahay waaye aad baa maasan tahay marka targetka canfartu ma wuxuu ahaa inay qabsadaan saaka magaaladaasi aad Cusub ku sheegtay laakiin dadku ay u yaqaanaan Cundhufo target way waa saddexdii magaalo ay marka hore ku taamayeen laba waa kuwa gacanta ku dhigay tanna waxay lahayd maanta gacanta baha marisiin oo sidaas ba matqana wadada dheer ee adiis ku baxaysay istaraatiijiyada waaga horeba loogu talagalay dawlad deegaanka la raaciyay in ay dhul ahaan ba sharci ahaan loo raaciyay laakiinse in ay magaaladiin ay soo degaanaysaa ay kula wareegaan bay rabeen laakiin wacdara ay kala kulmeen walaalaha matqana ee Soomaaliyeed
waajibaadkooda ka soo baxay runtii waxaana la arag bay meesha ka muujinay ka tuseen waayahay uma malaynayo waxaa ku dhacay inay hadda ka soo laabanayso ay hadda ku soo dhiiran doonto Soomaalida waayahay marka ma waxaad leedahay dagaalkan marka la qiimeeyo labada dhinac Soomaalida iyo Canfarta marka la yiraahdo waxa khasaaruhu u badan yahay oo dib loo reexay deegaanka Canfarta ciidamada ka socday khasaaro ba'an baa ayaa la gaarsiiyay iyagu mar walba waxay barteen dadka ciidanka inta ay soo galiyaan ayay dharka intay ka saaraan dad shacbi soo galiyaan xaggan shacbi awlaad iyo dumar iyo dad waaweyn baa degan halkan kale waa wada rag walibana uu xoog inta wada laaleega wax soo wada galay oo maxuusinta loo soo galo dariiskooda laga dhigo liyu booliskoogi ayaa la leeyahay shacbi la dagaalamay laakiinse maanta waxa la gaarsiiyay in waaqli celin doonaan malay waayahay garbaciisa marka yaa jooga hadda iyo magaalada la yiraahdo Cadayti yaa ku sugan hadda Canfar baa ku sugan xagga maxaan ku yiraahdaanay garbaciisa go'doon bay ku jiraan imika afartii biina garjib waa laga soo joogsaday ciidankii federaalka soo dhaxgalay oo xagaasi liyo hayl kala lahaa ayaa soo kala dhex joogsaday oo imika doona waan inuu dhaxgalo halkaasi xaqii kala Cadayti laakiin baashu ay socotaa oo wali lama soo kala dhaxgaliya oo kolba afartii waxa 30 kilomitir imika waa la soo riixay Cadayti baa loo sii dhow yahay waxa la rabaa in kaabadii Cadayti ka dambeysay in laga talaabiyo waayahay waxaad sheegtay in ciidamada makalkiyaaga ee federaalku ay soo kala dhaxgaleen ciidamadaasi marka shacabka Soomaaliyeed la leenayo ma aragna iyagoo ka celinaya maxay tahay sababta hadda loo kala dhaxgalaya ama ay markii Soomaalidu ay si toos ah weerarka ay u soo gasho ama dagaalka u soo gasho ay u soo baxayaan ciidamadan dawladda dhexe runtii horta taasi wax badqaana ay dadka Soomaaliyeed ay iska indhatiri karaan maaha waxani waa wax ay gacan ambolog ay kula jirto dawladda federaalka ay kula jirto weeyin in Soomaalida ma taqaanaay xagaas laga kiciyo waayo wax kale ma ahan wax weyn dooniga Itoobiya 5 meelood wax ka soo galaan afar aan ku yiraahday afartii meeloodna Soomaalida degan waa xaggan mooyale ka timaada midna waxa weyn waa tani wajaale ka timaada mid waa tani dagaalkii uu socday ee wadada madow la yiraahdo iyo tani kale xadiidka ee Shiniida iyo ilaa ay shaaca iyo Dirdhabasan soo maraysa marka tani waxay yiraahdeen aadaami labadanba ay ku taalo gobolka City ay ku taalo mid waa in faraha kala baxdaan bay yiraahdeen tani mooyaalena waa diga arkay in matqaanay dagaalo badan uu ka socday oo imkaan laga soo jeestay marka faraha Soomaalida in laga qaado weyn meeshan waayo wadadani waxay ku baxdaa midna waa Addis midna waa Maqale marka dadkan in laga qaado Canfarna waxa weyn waa lagu awtacsanaya ma ahina laakiin si Canfar lama rabo iyagu waxa weyn waxa Soomaalidu tiraan ka u shaaga qaadan karta u loo dhiibta iyaga waxa waa lagu jiid maraya ma ahina laakiin meeshan lama rabo alxaar baa soo dejin raba waa alxaartii imika ahaan soo dejin kar waa dhuka tigreer ka soo kiciyay ee jigjiga hadda loo rabay weyn waxa loogu talagalay in xagga la soo dejiyo waaye marka la fiiriyo dagaalkan hadda weerarkan saaka Canfarta markay soo qaadeen dhinaca Soomaalida jawaabta ka timid yaa dagaalka galay ma shacabkii gobolka City kaliya galay mise shacabkii iyo ciidamadii deegaanka oo iskaashanaya yaa dagaalka qayb ka ah labaduba ma tahaan waxa weey waa la isgarabsaday oo runtii si niyad sami baa arinta loo galay waxa ku dhacayna waxa weyn oo malayna in Canfar hadii toole marka hore waxay ogaayeen in dawladda federaalku ay lugta hayso maxaan ku dhahay dawladda deegaanka ciidankeedu inayna talaabo qaadi karin taasi ogaayeen oo mar walba ay ugu dhiiranayeen in dawladda deegaankii ciidankeedu xagga jooga in shacbiga hortooda lagu laayo laakiin maanta ahaan waxaan oran karaa ragnimo iyo muujiyeen baan oran karaa waxay doontaba ha ahaato wixii sababay laakiin maanta ahaan way iska kor qaadeen baan oran karaa eedaymihii meel walba matqaanay looga soo cambaariyay aad iyo aad baad mahadsantahay way ugu dambeyntii Iliyaasow maxaad ugu baaqaysaa shacabka Soomaalida iyo dawladda deegaanka dawladda deegaanku marka horeba waajibaad baa ka saarnaa waxaan oran karaa waxa weeye ninka ku masruufaya kama hor iman kartin oo raashinka iyo wixii ku siinayay baa laga jar bay dawladdu lahayd waa ay dhaqaalaha dawladda deegaanka soo galo 20% weeye 80 ku federaalku uga yimaada marka waxay uga cabsan jireen wax kale ma ahan waxa weyn ciidankaasi raashinkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa wax oo dhan baan inaga jarbin lahaayeen imika laakiinse waxay isiraadeen hadii toole waqti waxa la joogaa in shacbigiina aanad ka dhexbixin iyaan oran karaa waxaan leeyahay halka ka sii wada muddo un baa joogaysaan cad ilaa xaqii ku dambeeyay waad u jeedaan idinkoo matqaanay maxaan ku yahay federaalka arrimihiisa isagoo fulinaya ayaa haddana god ku rideen maanta idinkana waxa weyn taa u baa inii dambaysa dadkiina ka dhexbixinaan oranaya waaye shacabka maxaad ugu baaqi lahayd iyaga shacbigana waxaan ugu baaqayaa Soomaaliyeed in ay gacmaha isqabsadaan inta qabyaalad iyo aad isfiirinaysaan idinkana waa idigu maqan yahay waa dad waxa mashaariicdan inii dhiibay oo guumeysiga ka soo haray
inaad ku maqnaataan halna magaalooyinkan iniga soo riixo inta Soomaalida 19 Tigreeg intuu yimid ilaa maanta la joogo dhulka Soomaaliyeed waa dhul intee wax laga soo wada beekiciyay ama qalin halagaaga barkiciyay ama qori halagaaga soo riixo waxa weey baashu way socotaa ilaa hadda ma hari cidii doonto maamulka ha qabto la xaweeyin waxa ka go'an meel looga taliyaba kaniisad baa looga taliyaba maqlay laakiin waxay noqotay nin walba xukuumadda qabto inuu Soomaali riixo ina ka go'anta intoodaba marka midnimadiina muujiye meel walba joogtaan mid matqaana mooyaale jooga mid waxa joogtaan maxaa ku dhaca Kenya jooga amba meesha doontaan joogi Soomaali galbeed inuu horta ka bilaabo dhexdiina gacmaha isqabsadaan oranaya وهاجي هذا ما صنطها هيدا وذيالكاسي وحوها إلياس وعيسو كمدا dadka deegaanka gobolka City ka soo jeeday isla markaasina si dhow la socdo dagaalada maanta ka socda galbeedka gobolka City halkaasi oo weerar ay saaka soo qaadeen ama ay soo qaadeen ciidamada qoomiyadda Canfartu jawaab ay ka bixiyeen shacabka iyo ciidamada deegaanka Soomaalida oo iskaashanaya isla markaasina waxa ay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in dagaalku haatan uu ka dhacayo duleedka degmada Cadeyti iyo sidoo kale magaalada Garbaciis oo iyadana lagu hareereysan yahay halkaasi oo khasaaro weyn loogu geystay ciidamadaasi iyagoo gardarrada iyo duulaanka ku soo qaaday deegaanka Soomaalida ee ka soo duulay deegaanka Canfarta intaan markale kulmi doono waa Nuur Maxamed Cabdi iyo Bahda STV le sidaas iyo nabadgelyo waa maasantahay Ilyas Wacis adiga mudan